hadla iskaabalo dad kuma tiirsano ayaga isku tiirsan waxa waaye maqaayadaha wax awal ka doonan lahaynay maqaayadii waxa la dhahay gudaha wax lagu macuni karo waa in fayl dheer loo galaa haddana marka 12 bar soo afurto maqaayadii soo aado hal saac already waa bala taagan yahay marka hal saac la gaaro maqaayadii faylku waa bal xariisas lagu xiray ka bacdi waxay noqonayaan dantu ku qasbayna qof la soo afurtid ama aadi qofkii marka la soo afurtid waqtigii ku soo laaban lahayd jawaa ka dhamaaday marka waa soo laabato waxa laga yaabaa in qataata gasho askari wadada isku qabateen marka aniga dhibaatadaas aan haysata waxaan dawladda Soomaaliyeed ka codsanaynay iyo taliyaha ciidanka in nala ka qafiifiyo ganacsatada magaalada qaarkood oo la hadla VOA waxay sheegeen in awaamiirta soo saartay dawladda Soomaaliya iyo hirgelinta hadda ay tahay mid kala duwan marka loo eego habdhaqanka ciidanka booliska meelaha qaar walaalow bandowgan ay dawladda soo rogtay mid shaqeynaya ma ahan sida uu ku shaqeynayo iyo isfaaladiisana wax muuqdaba hadda oo nidaamsan ma uu ekabo dadka bandowga loo soo sheegay oo ciidankana oo habeen u taagan waxa loo dhanacsiyay waxba loo soo dhanacsiyay amisana qofka socdo qofta waa qof dilay qofkan guriga ka soo afray guriga markan kii intaan u socdo ka soo koob ul iyo budul daba taagan kan marka taasna mid shaqeynaysa maahan waa in dawladda midaas wax ka bedeshaa waliba wax weyn taliyahaas oo hore u sheegay in dukaamanka qalalan farmashiyaha daawo laga doonan karo qof feebar qabanaya sima doonta marka ninkaas kii waxa wataa ul iyo qori soo wataa marka taas waxay noqonaysaa naxariis la'aan tii xal ka dhacda tusaale dad guriga iskaga hor leebsanay aloo imaado xaro guriga kuleel waa roob ay mid roobka dimiga qofka uuna guriga ka jiro qofka banaanka soo leersado ma leersi karo marka taas dawladdu waxaan ka codsanaynaa in nidaamkaas nidaam ka duwan ay la timaado maadaama hadda ay bandowgan ciidankana la soo fahansiyo wax bandow yahay horta bandowgan macnaha uu ku saabsan yahay cudur la gordo Allah naga qorsho cudurka marka xabad ma la isugu bedela General Hajar ayaa weydiisay VOA in awaamiirtii hore la soo saaray iyo hadda sida ku socon ay tahay mid kala duwan marka loo eego bandowga sida hadda uu hirgelin ciidanka booliska meelaha qaar wuxuu xusay in awaamiirtii la soo saaray tahay mid cad hadda uu markale ku qalinayo awaamiirtuna aysan ahayn in dadka la ciqaabo mid kale oo rabaa inaan kaga faa'iideysto caawa muxuu ahaa wareysna waxa weeye in aan fahamka laga qabo bandowga ama awaamirta aanu siinay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku hawlan iyagoo shaqo fiican qabanaya mas'uuliyadda fahamka muxuu ahaa taliyayaasha iyo ciidanka oo dhan hadda ka horna waa sheegay haddana waa ku celinaya bandowgu ma aha qof socda oo lugeynaya oo xaafadiisa ama hor fadhiya ama iska lugeynaya ama farmashiye u socda ama dhakhtar u socda ama supermarket u socda bandow ma aha bandow waxa ah dad meel wada fadhiya oo tiro badan oo maqaayad hortooda fadhiya oo meel lagu talagalay in la xiro hor fadhiya ama gudaheeda ku jira ayaa bandow ah ciidamada amarka horeyna waan u siinay haddana waxaan u waadixinayaa oo u sheegayaa inaan qof socda ama laba qof oo iskood u socda waqti kasta ha ahaadaane oo doonaya inay wax soo iibsadaan ama dhakhtar u socdaan ama qof soo beegsadaan ama ka soo baxaan dawladda Soomaaliya ayaa hadda la dagaalaysa caabuqa COVID-19 waxaana Muqdisho ka soo saartay awaamiir ay ka mid yihiin dadku inay kala fogaadaan gaar ahaan bandow xilliga habeenkii bilaabanaya 7 fiidnimo laakiin qaar ka mid ah bulshada rayidka iyo dadka magaalada la hadla VOA waxay sheegeen in hirgelinta awaamirta bilaabanaysa 7 fiidnimo iyada nafteeda u baahan tahay sharaxaad meelaha qaar waxaa jira doodo laga kala bandowga nooc uu noqonayo yoo saameynaya bandowga bandowga lagu qaadaya bandowga ma mid amni ama waa mid ku salaysan COVID-19 iyo su'aalo kale ayaa meelaha qaar su'aalaha la iska weydiiyay waxaas looga fadhiyaa inay sharaxaad dheeraad ka bixiso xukuumadda Soomaaliya Abdul Qaadir Okay VOA Muqdisho wanaagsan dhegeystayaal walba naga dhageysanaysaan bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa sanadkan ku soo beegantay iyadoo dunida ay ka jirto xaalad aan wali hore loo arag oo uu dhaliyay xanuunka COVID-19 culimada islaamka ayaa ku baaqaya in bishan looga faa'iideysto ka hortagga cudurka iyo xoojinta iskaashiga bulshada dhexdeeda warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan dunida islaamka ayaa sanadkani uu yahay mid uga duwan sanadihii ka horreeyay iyadoo la xiray dhammaan masaajidii oo ay ugu horeeyaan labada xaram ee barakeysan waxaana xaaladda sii muujiyay iyadoo bishii barakeysneed ee Ramadaan ay bilatay iyadoo weli lagu jiro la dagaalanka cudurka COVID-19 ama corona waxaana muslimiin badan uu shaki uga jiray sida loo soomi karo sanadkan taasi oo ay culimada islaamku ugu dambeyntii ay isku raaceen in si caadi ah dadku ay u soomi doonaan sanadkan sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al-Basri oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kana tirsan jaamacadda Ahqaf ee dalka Yemen waxa ay isku raaceen culimadaas oo iskaashanaya fiqiga dhinaca islaamka iyo cilmiga caafimaadka waxay isku waafaqeen in soomka bisha Ramadaan uu yahay sidiisii hore mid waajib ah isla markaana wax xiriir dhow uusan la lahayn coronavirus waxay meesha ka saareen aragtida ka timid dadka qaar ama culimada qaar oo fadwooday in dib loo dhigo bisha Ramadaan soomka la soomayo ayagoo markaa ku marmarsiyoonaya in dhuunta ruuxa sooman maalinta Ramadaanka ay qalaleyso isla markaana qofka uu u baahan yahay biyo iyo cunto iyo raashin
aragtidaas culimadu ay isku waafaqeen waxaa kaloo isku waafaqay oo hoose ka xariiqay taageerana u muujiyey barnaamijkaas golaha fatwada ashar iyo dhaqaatiirta masar culimo kale oo iyaguna golaha fatwada reer yurub iyo maraykanka xafiisyo ku leh isla markaana waxay baareen coronavirus iyo soomka waxayna hoosta ka xariiqeen oo isku waafaqeen guud ahaan in soomku xataa faa'iido ahaan ama daaqo ahaan uu siyaadinayo tamarta ruuxa sooman isla markaana adkaysi adag uu u leeyahay ruuxa sooman inuu ka hortag la yimaado coronavirus marka sidaasaa loo badan yahay oo ah in soomku uu yahay sidiisii hore muslimiintuna ay soomayaan soomkuna uu yahay wax waajib ku ah ruux kastoo muslim ah waxaa jirtay aragti aad u daciif ah oo aan burnayn oo ka timid culimada muslimiinta gaar ahaan garabka shiicada waxa loo yaqaano gaar ahaan muftiga sistani shiicada hogaamiya taasoo uu ku baneeyey haddii la gaaro bisha ramadaan in ruux kasta uu afuri karo cabsi uu ka qabo coronavirus waayo wuxuu leeyahay waxaa suuragala in saacado kooban qofku u baahdo biyo iyo cunto isla markaana dhuunta ay qalayso marka taasi waxay keenaya inaan ramadaanka la soomin aragtidaasi mid saxan ma ahan diini ahaan iyo caafimaadba labadaba waxa weeye culimada ashar oo markaa kaashanaysa dhaqaatiirta masar iyo golaha fatwada muslimiinta ka dhisan yurub iyo maraykanka ayaa isku waafaqay in coronavirus uusan wax saamayna la lahayn bisha ramadaan iyo soomka la soomayo culimada islaamka ayaa sidoo kale sheegay in bishan looga faa'iidaysto la dagaalanka faafitaanka cudurka corona iyada oo dadku ay iska ilaalinayaan fidinta wararka beenta ah ee khalkhalka gelin kara amaba ku abuuraya bulshada sida uu faahfaahinayo sheekh cumar xuseen sayngeci oo ka takhasusay cilmiga bulshada iyo daraasaadka islaamiga ah ee jaamacadda alimaam maxamed ibn sacuud ee dalka sacuudiga kuna sugan magaalada riyaad ee xarunta dalkaasi iyadoo wadamada caalamka oo dhan ay la daala dhacayaan xanuunkan dhibta badan ee maaragtay ummadii ka wareeriyey ilaahay naga qabto ayaad moodaa inay dadkii u raacday wax la yiraahdo kutrikuteynay ama warar aan sal iyo raad lahayn oo meel lagu ogeyn iyo meesha ka yimaadeen la aqoon qaarkood ay dadkii u sheegayaan in xanuunkan dawadiisii loo helay qaar ay u sheegayaan inaan waxaan dawadiisana lahayn dadku ku dhacaan ay dhamaanayaan oo sixin lagu maaragtay dadkii loogu sheegayo inkastoo hadda xanuunkan jira wax dawo ah haba yaraatay aan wali loo helin haddana waxaad moodaa dadka qaar inay leeyihiin war waxa loo helay dawo oo maxay cunaa qof walba khuraafaad iyo waxyaalaha aan jirin oo aan dawo ahayn oo dadka u sheegayo marka aan waxaan kula talin lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba inay macluumaadka saxda dadka oo maaragtay ahalka oo inay ka qaataan inay ka fogaadaan waxyaalaha aan saliyaraadka lahayn iyo ishaacadkaas iyo waxa la isla dhexmaraya iska qaadanayaan inay qof walba inuu mas'uul noqdo oo dareemo mas'uul naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa iyo mid insaaniyad inuu qofku dareemo oo waxa laga rabaa oo wax sax ah dadka u gudbin karo isaguna hadduu u baahdo uu halka uu ka heli lahaa macluumaad sax ah uu doonan lahaa inuu ku dadaalo ku xidhnaanshaha ilaahay iyo maaragtay cibaadada inuu badiyo qofku mar kasta waa wax maaragtay islaamku ina farayo in laga fogaado waxyaalaha uuna qofna u sii gudbin isaguna uuna maaragtay naftiisa iska ilaaliyo xayiraadda caalamiga ee ka dhalatay fiditaanka cudurka corona ayaa sababtay in dhaqaale xumo ay ku dhacdo qoysaska saboolka ah iyada oo dadka u ololeeya arrimaha bulshadu ay ku baaqayaan in bishan barakaysan ee ramadaan looga faa'iidaysto bixinta sadaqada iyo taageerada dadka saboolka ah adduunyada ayaa weli la dagaala dhacaysa xal u helidda iyo xakamaynta cudurka corona iyadoo aan weli la ogeyn xilliga rasmiga ay gebi ahaanba la qaadi doono xayiraadda